maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa magaalada Kismaayo kaga garsoortay dacwadaha ilaa 4 eedeysane oo kiisas kala duwan ka geystay furmaha hore ay ka socdaan dagaalka argagixisada looga sifeynayo deegaanada maamulka Jubbaland kuwaasi oo loo haysto inay nolosha dhaafiyeen saaxiibo ku saf ah oo difaaca ay ku wada jireen iyo dambiye kale. Maxamed Cabdi Xasan waxaa si gaar ah loogu haystaa inuu dilay 12kii bishii 7 ee sanadkan marxuum Aadan Qadar Axmed oo ay shaqada qaranka saaxiibo ku ahaayeen. xabad laga riday qoriga K47 ah oo wadnaha kaga dhacday marxuum Aadan Qadar ayuu u geeriyooday iyadoo sababta dilka keentay ay ahayd muran la xiriira caag jirigaan ah oo biyaha ay ka isticmaali jireen. Yaasiin Maxamed Xasan Tuuxow oo eedeysanaha labaad ah ayaa isna loo maxkamadeynaya dil uu u geystay XW xooga Maxamed Aadan Ibraahim falkaasi oo ka dhacay deegaanka Harboole ee degmada Afmadow taariikhdu markii ay ahayd 19kii bishii 7 ee sanadkan. marxuumka dhintay oo wax dareen ah ka qabin askariga difaaca kula jiray ayaa isku day 3 jeer ah oo uu ku baraarujinayay eedeysana Yaasiin ka dhalatay inuu xabad si mirbeel ah u rido calooshana kaga dhacdo marxuum Maxamed Aadan. eedeysanayaasha saddexaad iyo afraad Qaasim Xasan Maxamed iyo Cabdulaahi Ibraahim Cali ayaa iyana halkan loo soo taagay inay si wada jir rasaas ugu fureen booyada biyaha ee waraabisay ciidamada waxaana halis ay geliyeen nafta darawalkii gaariga. Qaasim iyo Cabdulaahi ayaa ka wada tirsanaa ururka 330aad guutada 3aad ee qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Xasan Siyaad Maxamed Xasan Tarsan ku-xigeenka xiriiryaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa garsoorka maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaashan ay ku xukunto qodobadii sharciga ay ku soo oogeen. gudoomiye garsoorka maxkamadda Xasan dadka xoogga Maxamed Xasan waxa uu dil bareer ah oo ula kac ah u geystay marxuum dadka xoogga Aadan markii ay ahayd 19 bisha 2024 abaaro 5 saac 55 daqiiqo gudoomiye falkaasi waxa uu ka dhacay deegaanka Harboole oo hoostaga degmada Afmadow waxay ahayd goobtaasi goob difaac ah oo ciidanku waxa uu ku jiray howlgal. eedeysano waxa uu dil u geystay askari qaran oo difaac kula jiray isku koox ahaayeen ay hal koox ka tirsanaayeen ahaana kii cadowga la wajahay. asbaabta dilka waxa ay ahayd in marxuumku watay caag biyo ah kuna qabsaday eedeysano waxa uu marxuumku dhahay biyaha aadin oo ku soo qubaysanayay. marxuumku waxa uu yiri biyuhu uma diidin ee waxa uu yiri wax soo qaadataa baaldi aan kugu shubo biyaha hadda ku qubaysanaysid. kabacdi eedeysanuhu sababtay inuu diidi kartaa darteed ayuu ka xanaaqay waxa uu doontay qori waxa uu qatar geliyay askartii kale ee u dhaweeyay marxuumka dhiman doona. wuxuu ku soo riday hal baalood halkii baaloodta ayaa wixii ku dhacday marxuumka. eedeysanuhu marnaba ma mudna inuu sii dhex joogay ciidanka geesiyaasha ah ee qaranka Soomaaliyeed uu ka dhex geystay dembiga foosho. maxkamadda sharaftana waxa soo bandhigtay 2 marag oo maxkamadda horteeda ka faahfaahiyay wixii ay arkayeen. maxkamadda qodobka oo 4 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaan codsanaynaa oo codsiga ugu dambeeya in eedeysanaha lagu qaado aayaadka iyo qodobada aan ku soo eedeeyay ee dhigaya ciqaabta uu ku mudan karo uu kale isla markaana lagu xukumo dil toogasho ah oo qisaasta marxuum XW xooga Aadan Qadar Axmed si ay tusaale cad ugu noqoto ciidanka intiisa kale. eedeysana dibla xooga Yaasiin Maxamed Xasan Tuuxow waxa uu inuu geystay dibla xooga Maxamed Aadan Ibraahim waqti waxa ay ahayd qorin dagaalka deegaanka Arde ee hoostaga degmada Afmadow. in eedeysanaha la saaray wardi waxaa ku yimaaday sargaal xigeen kormeer waxaa la faray sargaal xigeenka soo kormeero
waardiga difaaca oo goob kasta uu markaa uu tago waxa uu ku yimaaday askariga aan waardiga saaran uu hurdaayo oo waardiga ku dul hurday asigoo saaran garabka ayuu ka taabtay wuu ku soo sasay markii si sasnaaf soo bood wuxuu maleynayay cadow qorigii uu haysto xabadii ka tirey awalkaanada ku jirtay ayuu ku taagay xabadkii waruu qareenka eedeysanayaasha abukaati caarif oo jeediyey difaaca muwakkiliintiisa ayaa isna dalbaday in loo fiiriyo si fiifaalaha dembiga fududeeya. maxamed cabdi xasan maxamuud waxbisha xilaalintu uu ku sheegeeyay eedna xogteedu yahay 434 wadaad gudoomiye muwakkilkaygu eedda 434 garaad uma ahan ma qirsana bedelkeeda wuxuu qirsan yahay 445 dil aan wada ka ahayn labada markhaati oo xafiiska xiraalintu keenay labaduba waxay sheegeen inaan wax colaaday wax dhibaysa ka dhaxaynin macadaalika waxay sheegeen dilku inuu wala ka saxa colaadi kama dhaxayn ee saaxiib bay ahaayeen iyo kasb ugu dilayne wax iswaafaqi kara ma ahan welidaa saasaa markhaatigooda uu ku duran yahay saaxiib bay ahaayeen wax dhiba kama dhaxaynin iyo kasb ugu dilay wax israaci kara ma ahan sidoo kale maxkamadda waxaan u soo gudbin doonaa ehelada marxuumka dhimatay marxuumka dhintay eheladiisa allah u naxariistay iyo eedeysanaha ehelkoodii way heshiiyeen nootaayay tageen heshiis bay kala qorteen heshiiskaasna maxkamaddan u keeni doonaa weliyi damki na maxkamaddan keeni doonaa heshiiskaas ku qanacsan waxaan maxkamadda sharaftana ka codsanayaa gebi ahaanba eedda 434 xafiiska xiraalinta ku eedeysan yahay iyo 195 bis oo dil uga ka casna ah intaba maxkamaddu meesha ka saarto ay ku beddesho 445 oo tilmaamaya dil kama iyo diyo in diyadii lagu heshiiyey ay ku heshiiyeenna maxkamaddan keeni doonaa weliidamki qiraal u ah. ugu dambeyn waxaa fadhigan soo xiray garsoore maxamed amiin cabdi aadan caftaax khiyaar warbaahinta qaranka Kismaayo.